maanta oo bisha Oktoobar ay tahay 2 waxaa ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho shir laba bari socday 1 iyo 2 Oktoobar oo isugu yimaadeen Soomaaliya iyo taageerayaasheeda beesha caalamka kulanka sanadlaha ah ee la yiraahdo Somali Partnership Forum kulankaas oo ah kii afraad oo la qabto laba waxay ka dhacday hadda ka hor magaalada Brussels ee dalka Belgium xarunta European Unionka labana waxay ka dhacday Soomaaliya oo kii ugu dambeeyay oo ahaa maanta ka soo qaybgalayaashu waxay qiimeeyeen horumarkii la sameeyay ilaa iyo shirkii ugu dambeeyay shirweynihii ugu dambeeyay bishii July 2018 waxayna isku raaceen in wax laga qabto arrimaha dhiman ama caqabadaha haray beesha caalamku waxay aqoonsatay horumarka ay Soomaaliya sameysay waxayna ku amaaneen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya horumarka macnaha leh la gaaray ku saabsan fulinta isbedelada laga sameeyay xagga ismaamulka lacagta ururinta dakhliga iyo isla tashigii ku saabsanaa qorshaha horumarinta dalka iyo dib u habeynta lagu sameeyay hay'adaha amniga iyo horumarka laga gaaray in la qabsado dhul ay al-shabaab haysatay lana xasiliyo iyo horumarka laga gaaray waxqabadka arrimaha bulshada iyo horumarka laga sameeyay dib u heshiisiinta gobollada qaarkeed waxaa la isla qiray inay jiraan wali caqabado ama taxadiyaad ay tahay in laga gudbo kuwaasoo ay ka mid yihiin in shaqo loo abuuro dhalinyarada in dhaqaalaha la kobciyo in la sii wado la dagaalanka al-shabaab iyo in maaragtay arrimaha bani aadamnimada dhibaatooyin ka dhasha guul laga gaaro oo la abuuro waxa la yidhaahdo resilience ama adkaysi ku saabsan dhibaatooyinka bini'aadamka iyo in asaaska loo dhigo wadatashiga siyaasadeed iyo in la xoojiyo oo la ixtiraamo xuquuqul insaanka iyo in haweenka iyo dadka laga badan yahay la siiyo ka qaybgal iyo matalaad Soomaaliya iyo beesha caalamka ee goobjoog ahaa waxay ku heshiiyeen wax la yiraahdo mutual accountability framework oo ah isla xisaabtanka loo dhanyahay kaasoo ah in culayska la saaro meelo gaara oo u baahan waxqabad iyo resources intaba sidii loo gaari lahaa arrimahaas inta ka horeysa bisha December 2020 beesha caalamku waxay sheegeen horumarka laga gaaray arrimo muhiim ah sida xoojinta iskaashiga siyaasadeed ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada taasoo
taasoo la sii horumarin karay madaxda Soomaaliyeedna way direen in horumarka arrinta laga gaaraa ay muhiim u tahay in horumar badan laga sameeyo arrimaha siyaasadda amniga iyo hagaajinta ama dib u habeynta arrimaha dhaqaalaha taasoo uga baahan commitment ama uga baahan dadaal dawladda dhexe dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada madaxdooda